marka sharciga ilaahay dhigay ayaa ku xakameynaya mararka qaarkood laakiin waan ku darsaynaa wax laayo wali wax badan dilo oo waliba iskaano anigu ayaan ku talagalay sababtoo dulmiga noocaas oo kala ah wax ka dhacay dalkeena ma ahayn ma raba xitaa markii gacan ku jiray markaas waxa isku dayeen lacagtooda badan inay kaga xiraan dadka masaakiinta ee seeraha degan xoog iyo lacag inay kaga xiraan ilaalush meelaad joojino oo banaano banka lagu dhimanayo ahayn waanu la anahayo beer baan hooyo mushkati kana waxaanu rabnaa haday Soomaaliland aynu nahay oo maalka la doonayo oo dhaqaalaheena la doonayo in beerihii laga tiro waxa uu meel guuda wala yeeshay la xambaarta Allah qofban buu ilaashanaya waxa weey marka mar hore wax ka qabasho lahayd imika wax ka qabashadeedu waxa weeye waa inaan anagu quwad iyo xoog ku muqoonina mooyaane dhibaatooyinka hortaagan horumarka iyo guulaha bulshada reer Soomaaliland ay hanteen waxa kamid ah isku dhacyo ka abuurma kheyraadka dabiiciga inkastoo aanay arintaasi hakinin geedi socodka iyo horumarka dalka Soomaaliland haddana waxa la aqoonsan yahay inay arintu tahay waxyaabaha caqabada ku ah hakiyana xawliga horumarineed ee bulshada kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliland waxay gacanta ugu jirtay dadweynaha reer Soomaaliland ka hor intii aanay gumaysigu dalka imanin hase ahaatee waxa maamulka kheyraadku gacanta ugu jiray dawladihii kala dambeeyay sida tii gumaysiga dawladihii rayidka ahaa iyo tii diktaatooriga ahayd ee Siyaad Barre maamulada dawladnimo waxay abaabuleen shuruuc iyo habdhaqan lagu ilaaliyo hantida qofka iyo hantida guud labadaba shirkii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliland ee Boorama 1993 ayaa la isla gartay in hantida maguuraanka la isu celiyo arintaasi wax badan baa ka hirgalay hase ahaatee wax badan oo qabyo ahina waa jiraan waxayna u badan yihiin marka hantidaasi ku taalo meelaha aan qofku asal ahaan u dhalan hantidaas muranku ka yimaado waxa kamid ah hantidii la wareegi jiray kuwii bangigu xaraashay iyo dhulkii amaahda loo qaatay ee mashaariicdeedu kacday kuwaas oo dhammaan noqday goobo cusub oo la isku hirdiyo iyadoo qof kasta dib u doonay inuu dib u ceshado hantidaas amaba sheegto xataa hadii ay cid kale haysato mulkiyadeeda iska hor imaadiya ayaa ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyadoo la isku qabsanayo guryihii dawladda dhulka agagaarkooda ah iyo dhulkii ay lahaan jireen dad u dhashay gobollo kale ee dalka ah qof kasta oo raba inuu gacan ku dhigo dhul dawladdu leedahay wuxuu adeegsaday hay'ado kamid ah hay'adaha dawladda sida wasaaradda beeraha dawladda hoose ama wasaaradda hawlaha guud hay'adahaasi mid waliba waxay qofka siisay qoraal tilmaamaya lahaansho taasina waxay horseedaa isku dhacyo hay'adihii dawladda ee kala duwan u kala marxaati fureen culays aad u laxaad leh ayaa ku soo kordhay noloshii reer guuraanimada oo ay kamid yihiin tuulooyinka meel walba laga sameeyay baragaha goob walba laga dhisay seerayaasha qorshe la'aanta xoolo dhaqashada oo markay sii bataanba cidhiidhi ku kordhiyay daaqsintii joojinta dhoofkii xoolaha oo albaabka u xidhay arrimahaasi waxay keeneen dhac ku yimi heerkii nolosha ee miyiga taasina waxay horseeday in dhalinyaradii xoogga ahayd ka soo qulqusho miyiga magaalooyinkana timaado magaalooyinkana waxay ku dambeeyeen inay noqdaan xoogga loo adeegsado khilaafaadka iyo isku dhacyada cishimooyinka iyo dhulka la seerto ayaa cidhiidhi geliyay noloshii reer guuraanimada iyo xoolo dhaqashada taasoo keentay in isku dhac badani dhex maro dadka reer guuraaga ah iyo kuwa xidhmooyinka leh tan cashimooyinka dhulkan waxa la cimilay waqooyi galbeed oo ay beeralaya oo ay tahay marka dhulkii daaqtaha iyo burburkii la xidhay marka hore dhulku waa qaybsanaa waxa dhul beera ah iyo dhul daaqsina ayuu qaybsanaa waqtigan burburku wuxuu keenay wixii oo dhan in la ooto beer laga dhigo dadna la isku laayo maalin kasta rabshada ka taagan
hawsheedu waxay ugu fara badan tahay waxaanu kala celinaa dadka oo cashiimooyinkaas ayaa rabshado badan cashiimada macnaheedu waa sidaas waxa la kala ceshanayaana waa geedo iyo dhul taasina saa weeye tan kale seera dowladda lahayd dowladdii markii ay burburtay oo ay meesha ka baxday dad hore oo waraaqa u haystay waqtiga kacaanka ayaa jiray oo waraaqa haystay oo la siiyey dad dambe oo degayna waa jiraan hadda labadii dad ayaa iskaga hor yimaada dowladda sarena maalin waxaa leedahay maxkamadaha qaadan kiiska maalin waxaa joojiye waa barnaamij taagan weeye hadda wiigii hore oo kale waxa ka dhacay rabshad badan mudaarad bay sameeyeen qolada sooru buuq badan bay karsamiyeen waxa la yidhi maxkamaduhu ha qaadeen kiiska haddana taar baa yimid daraato waxa la yidhi joojiye marka warka hargeysa waa maalin joojiye maalina qaada dhibaatadaas horta mashkilad weyn ku haysaa degmada Maargaabo khilaafaadka beeraha waxay ka mid yihiin kuwa ugu qalafsan ayadoo la isku qabto soohdinta mooska biyuhu u soo maraan iyo midhaha oo dad iyo dunyaba lagu talo xumoobo mararka qaarkood laba gacanka ana ale wadada iyo ana ale midba midun buu yiraahdaa goosanaya laaluush iyo tira iyo balaaya keenana waa har badan waxaanu sameeynay 5 yeelood baan isku xidhnay beesha ijaarkii u kooneeyay ayaa sida qayd looga qaaday kii kalena halkaas qayd laga qaaday warmiya wax laga duway baa waxa ijaar xaq u lahayd labada maan baa loo dhigay midba mayl baa sida inta gacankiisa uu ka cabayay in leeg baa sida xadhigii loo jeeday xarkiyo sidii ku xiran ayaa la kaabada ku sameeya xadhigii sidii loo hayo ayaa kaabada sida loogu sameeyay sibir la soo qaado qardaasa dabadeed waa lagu sameeyay kii kalena waa lagu sameeyay labadii nin ee meel walba gaaray xafiis Hargeysa iyo mid xamar beriga ay jirtay uu gaaray xalkoodu wuxuu ku go'ay xariga arrinka odayaashu ay galeen ee la yiri hadaa dawladii iyo islaamka iyo wixiiba maqli weydeen annagana maqla inna la yiri wax ma laga dhaafin walba ilaahay waxba laga dhaafin sida raalli ma ku tahay raalli baan ku ahay kaabadi wali way sameeyeen waxa la kala boobay isku dhacyo badanna keenay iskaashatooyinka iyo dhulkii loo qoondeeyay mashaariicda horumarineed ee dawladii hore waxa aan noqotay jiida la yiraahdo caada oo murankeedu ilaa hadda taagan yahay mashkiladda caadu waxa la bilaabay koob iyo maxaan ku leeyahay 2001 baa la bilaabay buuqa ugu horeeya ama isqabsiga ugu horeeya markaas uu bilaabmay watii loo diray gudida walaha guurtida ayaa muddo 3 bilood joogay way wadeen 3 bilood oo kaamil ay caadi joogeen si ay arinta u xalilaan arintaas runtii wax conclusion ama go'aan ah kama ay gaadhin guurtidu waa si dhadhaweeyeen oo muddo ayay joogeen kulli anigu maan arag go'aan ama conclusion guurtidu gaadhay oo qoran oo jira say arintaasi u dhacdayba maan arag anigu runtii ma arag iyadoo uu xadidan yahay dhulka ku haboon wax beerista dalku waxa haddana sii dhantaalay fidista dhirta qalaad ee qabsatay dhul badan oo la beeri lahaa waxa dhirtaasi kamid ah tiinka garanwaaga kaligii noolaha iyo kuwa kale burburka deegaanka ku dhacay waxa ugu culus dhirta loo gubo dhuxusha waxaana loo baahan yahay in la helo dariiqooyin kale oo lagaga maarmo isticmaalka dhuxusha dhuxulaysatada ayaa isku dhaca markay ka gudbaan deegaamada beelahooda geedkii wadanku uu dhamaaday waxa uu dhamaaday laba dhuxul la shidayo oo ku qoyan iyo ku engegan oo la aaba yeelin oo la dhameystiray iyo geedkoo markay abaartu yar dhacdo geedkii caleenta lahaa midhaha lahaa faraqa lahaa xaabada lahaa oo mar qurahun gudinta la raacinayo mar qurahun gudinta la raacinayo waxba lagu reebin marka anigu waxaan taagnahay geedka wax dhulkii geed bay noo haray geedkiina waa la dhameystiray wax laga qabto
macdan qodista waxa ka shaqeeya dadka saboolka ah waxayna adeegsadaan qalab farsamo ahaan hooseeya waxay wasaaradda qaabilsanay bixisaa liisamo macdan qodasho baaris iyo macdan iibin macdan qodotadu waxay u habaysan yihiin qaabab iskaashato iyo shirkado isku dhacoodu wuxuu yimaadaa kolka cirqiyo iyo ceelal macdaneed oo cusub la helo dadkii markaa uu soo jabay ninkaas waxa dhib buurtan macdan baa laga helaa leeyahay oo lacag baa laga helaa leeyahay oo ninkaas waa meel ayuu qabsaday qolka sabab raashin yar iyo wax way soo qaadatay way timiday waxa ka yimid booq markaa in la isku qabsado meelaha laftigoodii intayadii markaa ka khibrada badnaa ee uga aqoon badnaa ugana soo horeynay meeshan halkan ceelkan uga soo horeynay ama buurta uga soo horeynay daraasada ku sameeynay waxaan sameynay gudi dhexdhexaadisa iyaga dejisa iyo farsamo yaqaano u sahamiyo meelaha macdanta leh inkasta oo ay yar yihiin tirada doonyaha badda ku foofa wax soo saarkooduna liito ayaa badiyaa kalluumaysatada waxay ugaarsadaan dhagaha libax badeedka khayraad badeedka iyo cambarka khilaafaadka ugu waaweyn ee badda ka dhaca waa loolan ka dhaca wakiilnimada doonyaha shisheeye oo u badan Yaman doonyahaas oo xaaluf laxaad leh ku haya badeena waxyaabaha dhaca ee marka Soomaaliland ka dhacay ee la og yahay cid baan wax ka qabanayna waxa kamid ah wixii qiimo leh kalluunka waxa uu qabtay waa la soo dalaacay bahalka shabaka waa la soo dalaacay halkan lagu daadinaya ma wixii qiimo leh soo wixii kale wixii qiimo leh waxa lagu riixayaa qaboojinta waxa la riixay kala badda lagu daadinaya meesku waxa had iyo goor ka cawda iska badda kalluumaysiga waxa la leeyahay wixii geeri ku siman ama ka shisheeya reer miyiga degan way kaga smoobeen waa dhab qarmuunka iyo urta iyo kalluunka soo caariyay ee meesha maraya maraakiibtaas u daadisay and everybody knows yaan been leesu sheegay Soomaaliland way ogtay nin aan ogeyn ma jiro nin aanan hor fadhiisanin ma jiro nin aanan u qorin ma jiro nin oran karaya leeyma sheegin ma jiro wasaaradda kalluumaysiga ayaa bixisa qadar kamid ah fasaxyada doonyahaas balse waxa badan doonyaha tuugaysta badeena oo aan fasax ka haysan in doonyo ka imanaya adduunka meel walba ha ugu badnaadeen kuwa kan dalalka aanu jaarka nahay Yamanta oo kale oo mid walbi nin Soomaaliya oo aan garanayn qiimaha waxa uu qaadanayo inta leeg tahay carabka kan la siinayo foosta shidaala ama $100 oo dabeedna aan soo doonanayn liisankii sharciga u lahayn ka qaato dawladda oo ku kalluumaystay tuuga ku kalluumaysanay sababtuna wuxuu ogaaday inaan baddi cid ilaalinaysaaba jirin marka wuxuu u soo doontaa liisanba tema taalo mushkiladan wax laga gudbi karaa uun marka la helo ciidan ilaaliya baddi oo joogta oo ay isu sheegaan kii ajnabi ahaana ogaado kii dalka joogay ee dalka lahaana uu ka warhayo hay'adaha dawladda ee meel marin lahaa dhibaatooyinka wax ka qabashadooda sida booliiska maxkamadaha iyo hay'adaha ku shaqada leh waxa ayagana haysta dhibaatooyin wax ka qabashadooda u baahan tahay maalgelin dhinaca tababarada aqoon sharci iyo dardargelin awood la hayo meel marinta shuruucda oo u kala baxda laba arrimood booliiska oo aan damaanad haysan markay fulinayaan ka hortagida ama xalinta khilaafaadka sida daraadeedna aan ku dhiiran wax ka qabadkiisa hay'adka maxkamadaha oo ku riixa beelaha xalinta khilaafaadka